السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسودو جنالك حنقي شو muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa dilalkii ugu khatarsanaa ee dilalka siyaasadda. Abraham Lincoln wuxuu ahaa madaxweynihii 16aad ee waddanka Mareykanka. Wuxuu xilka hayay 1861 ilaa 1865. Madaxweyne Abraham Lincoln wuxuu taageero weyn siiyay xorriyadda dadka madow ee Mareykanka sanadkii 1865. ayuu madaxweyne Abraham Lincoln tagay tiyaatar isagoo doonayay inuu ka qayb galo riwaayad ay dhigayeen fanaaniinta madadaalada ee dadka ka qosliya. Waxa arrintan ka warhayay ninka doonayay inuu dilka fuliyo oo la oran jiray John Wilkes oo basaas ahaa. Madaxweyne Abraham Lincoln muu sii kaxaysan ilaaladiisii gaarka ahayd, balse waxaa kaliya oo goobta tiyaatarka ilaalinayay 3 askari. taasina waxay fursad dahabi siisay Wilkes oo ahaa ninka dilka fulinayay. Markii madaxweyne Abraham Lincoln uu galay tiyaatarkii ee uu fariistay ayuu madaxa ka toogtay waana uu baxsaday. Inkastoo markii dambe la soo qabtay maalmo yar kadibna la dilay, waxa shacabkii Mareykanka iyo adduunkaba ka dhaadhici weyday sida fudud ee uu dilku ku dhacay. John Lemon wuxuu ahaa xubnihii aasaasay shirkadda Beatles oo ah shirkadda ugu caansan ee soo saartay injirka ama laastiga. waxa kale uu ahaa xubin ololeysan nabadda. wuxuu ahaa afmishaar Ilaahay hibo u siiyay inuu dadka si fudud kaga dhaadhiciyo nabadda iyo horumarka. wuxuu doodo badan la galay dad ka soo horjeeda fikirkiisa, kadibna waxa uu kaga xog batay doodii, waxaana sumcad uu ku helay hadalyaqaannimadiisa. sanadkii 1980 isagoo maraya meel wada ah magaalada New York ayuu magaciisa ugu yeeray nin isagoo kor u dhawaaqaya. kadibna waa uu eegay, waxa uu arkay nin la oran jiray Mike David oo ku soo socda oo ay soo direen kooxihii ka soo horjeeday. markii uu soo gaaray Mike ayuu toogasho ku dilay, wuxuuna ku dhuftay 4 xabadood. Mike ayaa dhex fariistay dariiqa uu ku dilay John isagoo sugaya in la xiro ama boolisku ay qabtaan. Robert Kennedy wuxuu ka yaraa John Kennedy. jaamacadda Harvard ayuu ka bartay sharciga. dowladdii John Kennedy wuxuu ka ahaa xeer ilaaliyaha guud. Roberto wuxuu isu sharaxay jagada madaxweynenimada dalkiisa horaantii sanadkii 1968 ayuu u tartamay kursiga aqalka sare ee Koongareeska waana uu ku guuleystay. isla sanadkaas dabayaaqadiisii ayuu u tartamay kursiga madaxweynenimada isagoo ku jira ololihii doorashada oo khudbad u jeedinaya taageerayaashiisa hoteelka Ambassador ee magaalada Los Angeles. markii uu khudbadii dhameeyay isagoo gacan qaadaya dadkii dhageysanayay ayuu nin la oran jiray Sarxan soo dhexgalay dadkii salaamayay, markaasuu bastoolad ku togtay. goobtii ayuu ku geeriyooday. ifka wuxuu kaga tagay 10 caruur oo isugu jira gabdho iyo inamo. ninkani wuxuu ahaa Falastiini kaga argoosanay taageerada Mareykanka uu siiyay Israa'iil dagaalkii 6 cisho ee sanadkii 1967. Malcolm X wuxuu ahaa nin madow oo Muslim ah. wuxuu ahaa ninkii ka dambeeyay ururkii awoodda dhaqdhaqaaqa dadka madow ee Mareykanka sanadkii 1960 ilaa sanadkii 1970. wuxuu bilaabay halganka xorriyadda dadka madow ee Mareykanka sidii kuwa cad ay ula sinaan lahaayeen. wuxuuna xubin ka ahaa ururka Islaamka ee Mareykanka. isagoo khudbad ka jeedinaya meel fagaara ah ayuu nin hubaysani ku soo dhex dhoontay dadkii dhageysanayay khudbadda. kadib rasaas ayuu ooda kaga qaaday, halkaasina ayuu ku dhintay. ninkan dilay waxa uu ahaa cunsuri necib dadka madow. Alexander Latafingo wuxuu ahaa sargaal ka tirsan hay'adda sirdoonka Ruushka ee KGB, balse si hoose ugu biiray hay'adda sirdoonka Ingiriiska ee MI16. sanadkii 2006 sirdoonka dalka Ruushka ee KGB ayaa diyaariyay shirqoolkii lagu khaarijinayay Latafingo. muddo sanado ah sirtii Ruushka gacanta u geliyay sirdoonka Ingiriiska MI16. sirdoonka Ruushka ee KGB waxa u suurta gashay inay xidhiidh la yeeshaan shaqaalaha hoteelka cuntada ee u deganaa Latafingo. 3 isku day oo dil ayaa ka fashilmay. isku daygii afraad ayay u suurta gashay inay koob shaaxa ugu daraan sun culus oo halis ah isagoo ku sugan qolkiisa hurdada ee hoteelka uu deganaa. 3 week kadib markii dhakhtarka la dhigay ayuu u dhintay suntii.